halkan akhyaar culus baa isugu timi waxa ay ku jiraan jirdhis iyo jimicsi Cabdiqani iyo Maxamed iyo rag kale oo saaka noo imaan raggu waxay ku jiraan runtii waxa weeye alamiito iyo jirdhis iyo caafimaad Cabdiqani haye waxaan ku jirnaa mid ka mid ah training-kii waa ninkii saaxiibkay Maxamed anigu Cabdiqani xasan baasho nabuubaya training-ka waxa wadnay muddo adigu hadda 2 bilood ah insha Allah wax badan ma sii dareen walaqdii oo dhan waa maaragtay waa socotay waata dad badan baa daawanayo oo walwadaas dib ay ku hayso marka training-ka waa wadnaa hadda adigu after 1 year insha Allah waxaan rabnaa in maaragtay isbedel fiican waxaan danta loo sameeyay ma aha in la iska ururdo ma waxa la rajaynayaa in maaragtay hay isbedel fiican saankay waa kan Maxamed haye horta training-ku waa caafimaad qofka inuu jirkiisa dhiso ordo almiiteena wax danta uu jirto iyo caafimaadna ku jiro Soomaaliga dadka waxa kula talina baruurta dishay meelaha baruurta la fadhiya oo kicila inay ordaan wata oo jirkooda caafimaadkooda soo cishtaan ilaa hadda dhidid ordo waxa laga yaabaa inay caafimaad ka hifsama laakiin baruurta sidoo waa cudur waxa intiis guurideen waa la iska ridaa علاش meelaha la fadhiyo waxa kula talinayaa inay ordaan orod kalimaha muhiimadu waxay tahay inay koob aan tahay inay sameeyaan wata mudadii awood beed maxaa dareentay isbedel aad weyn baan dareemaanay kuma dhigi kara aad baa isku bedel laakiin isbedel yar baan dareemayaa sidoo hormay awal barur baan dhaqaaq kara la orodku ma jiraan wax caqabad ah oo aad la kulantay intii hawshan awood maxaa waxa kamid ah ka hurdada waxa kale hurdada kamid ah hurdada ku baahay jiray caajis loo baaha أول مرة أردشن دقة أردو النف بنقول شيء وحنا وحاسود بروتة إسرائيل شاع عديس كاي محاكور هذا بيها وحاسة استعمال شيء مارك وحقد النار 4 كيلو اللي بالبه هذا اللي بيش واحد بدل كابدي كران وحابي يقدر سوي هالكيلو يقدر سوي حصوم وحاصوم غدي قفكو كجر بسمينه كجر هذا ليش واي كارو صار كجر waxa weeye maanta halka waxa ku sameynaysa training wadaalaysa waxiiqaysa bas oo mateedka ku furmay xaafadii baa tagaysa waxa aragtaa dijinis watahay training kan oo kale ama tababarada noocaan ama jimicsigan oo kale waxa uu muhiim u yahay qofka caafimaadkiisa iyo noloshiisa waa wax adiga aayahaaga iyo mustaqbalkaaga runtii ku roon qof kasta waxaan ku talin lahaa ama haburnada ama caatisnaade inuu subax walba xilliga aroortii ah uu sameeyo 10 daqiiqo ma Allah ka dhigay jimicsi oo uu dhidid iska keeno waayo dhididkaasi ka imaanaya waa wasakh ka baxaysa jirkiisa waxay u tahay caafimaad waxa uu dareemayaa nashaad iyo firfircooni qof walbana waxaan kula talin lahaa inuu arinta ayada ku dhiirado abdu maasan yihiin saaxiibada Cabdiqani iyo Maxamed iyo rag kale oo naga maqan oo maanta noo imaan hasi ahaatay iyagu kamid ragga hal training kara iyagana waxaan rajaynaynaa inay naga soo qayb gali doonaan maalmaha soo socda macallimiintaasi iyo rag kale oo maqan idinkana waxaan ku talinaynaa saaxiibayaal inaad tababarka iyo training-da iyo jimicsiga dadka loo gudbinayo waa dadka walaq ku badan iska fadhiya hey walaq loo maqlayaan oo sii fadhiya misna oo kan xusugayaa in adeero inay kacaan oo maaragtay sida isu dhaafan waa tahay aad baa mahadsantihiin aad baa salaam